سنة أروس كمركي لقيت منك هيس مسلم أنا الله يقام وحقاد شري الله يرحمه أحمد نور جريك محمد نور جريك هاي سوينا قليل وحاجة كوش الله يرحمه هيس تمدر له مسلم قلت بو أمانية لكن كامل منه اسمها مل يعينه وقتكم أدر باحينه سيدي عدد على تيبيه ولد بناداته أنا وحي داوعي دايا وفوني والله كقصم خاك وحاول بقنتها بقدي عاد عيدو اسكو سو دواادي ومقارنه كبرون العرب صور ببخنيا ninkaas arooska yimid xisbaa jeclaada aragtida ayaa laga rabaa kaas waa jacaylka aragtida jacaylka sheekada waxay leeyihiin ka xeel dheeriyahay ka aragtida waxay leeyihiin labadii qof hadaan ay sheekada dambe wax yeelan wuxuu laga dugsan karaa qofku waa dib arka wiido laakiin ka sheekada aad u xeel dheeriyahay waayo waxa dhici karta qof ay istaqaanin laakiin aanad salaam jirto isdaafi jirto una sheekaysataan dadna dabeecadiisa iyo dulqaadkiisa iyo dadnimadiisa aad u bogto oo dabeetana habeenkii marka seexato sidii dhakhtar dawo ku qoray aad saga soo aragto qofkii meeshu joogay oo sheekadiisa aad ka qabatinto marba timaado wajacaylka hal jeer ugu xeel dheer ka sheekada maxay leeyihiin qolada halabuurku Abdulqaadir Xirsi Yamyam Allah yarxam heesbu leeyahay gobaada xasan aadan qaado iyo sheekayana kan taanu dhiman wali habeen inta qaadi ka soo kacay maalin guri ku socda xaafadana mariyba inaan baa ku baayay oo salaanay way fariisay waanu sheekaysan ilaa waa barigi ee sheekada noo socota heestu ku tilmaamaya wuxuu soo hadalla googo'an goorigaar kumaan oran guuleed ma jooga kuntanaha sarbeebtaas oo maanay garano sheekada igama qorin soo garasho xeel iyo gaari amaladoodii gogol ima soo dhigin haasawo guud oo gardaasada jacayl iyo soo garasho gaaro aanu lidin ka gaadna goobta kama dhalan wuxuu tilmaamaya shawigi ninka wuxuu leeyahay daayaha intaan ku arkiyo intii dhagin waray keentay dhulka intaan maray iyo intaan dhab ula sheekaystay dhul midabkileeyahay haddaan adiga kaa dhuuxay dhalasho iyo qabiil iyo haddii aan dhumucba ku raacay wixii aan dumar la sheekaystay adaa ugu xeel dheer hasna waa garanaysaa balad weyn inanta uu ka soo horbaxay dabeetana way salaameen dabeetana way soo dhaweysay gurigay geysay way u sheekaysay dabeetana waxaad ku tiri debrina haddaad joogi karto aan saradno waxa uu yiri dabeetana riwaayad baan sidaayo saddexdan baan joogayna markii uu ka soo baxay waa tii yiri war ma waa dhaqaaqayna ist balad weyn la sheekaynaya soo goor barqa ah bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlin isku maan soo bixin soo bixisa weeye balan maanu dhigano bari joognayo dabeetana waxa ninkii fayso taliyadaas oo gaano warmoogi hayna ma beenayn waa kaninkii sheegaya wajacaylka sheekada kaasina waa xeel dheeri xishoodka jira inta badan wax lagu jeclaa siba dumarka horta sidoo kale qofka bilaa xishoodka ah ee duuduubka badan dadku ma jecla haday dumar tahayna kada si xabtirti gabadhan asturaadee mariyaheeda asturaaddeeda iyo hadalkeeda iyo waxeedu aanay fiicnayn lama jecla waqti lagu maahmaahay saddex faa'iido ma laho fadhiyaro geeriyo fiqla ragiyo fududaha weyn saddexdaas faa'iido ma leh intii asana ay wixii fududaan farda ahayn faa'iido kuma ogi inantu inay xishooto oo iskururiso yaa fiican qoliyaha wax daraasay waxay dharan gabadha xishoodka badan afka gaaban xataa marka dambe la guursado ninka way qabsataa maskaxdiisa laana maxay rag waa qodqod badan yahay jira xulba inuu ogaado jeceli gabadhan urursan uu gaari waayo xeel dheeraanta uu gaari waayo xishoodka maxay kaleeyay waxa tahay qof ugu inuu ku buuxo aqalka ku dhalata alla lagu xusaayo edabta iyo xishoodkana idil hooyadaada kugu tiri adkeeyo mara aamusnaantana iyada ka wadata xishoodku cabiraya min kale wuxuu leeyahay cadfudaydu ma dhalan waa anaadi lama oran ara laguma sheegin wax ka cawda maan maqal ma cod dheera waa gabadh xishood baa u caada aqli waa u waayeen cirib baan leeyahay cirib gabadhaas hadii laga daba tago cirib bay leedahay xishoodku tilmaamaya heestii dawakii la oran jiray bari hore waxa jiray gabadhan bil iyo laba hadalkaaga bixin oo raggu baadi gooba bari erag min kale wuxuu leeyahay ciyaar buu ka heeso inaan waa hirgeeda la hubo way u simanta halkaad mari alla og yani hada lakatig isoo buu leeyahay waa tacaal kale tarku yimaada xishoodka tacaal kale ku yimaada caawimada qof dhakhtar galay oo la wadaajiyay qof tabaalaysan oo qof wax taray dabeetana qofkii buu jeclaanay duug baa jira la qoray toddobaatanaadkii loo jiray cawrala iyo calimax aad iyo aad u maasantay Yuusuf waxaan loosanayaduna sidoo kale qaybta labaad ee barnaamijkan ku dari doonaa quruxdu xiriir ma la leedahay jacaylka
waxaan filaya dad fara badan baa is oran doona talow Yuusuf Shaacir bal hadda waa kan dhakhtarkii jacaylku ku dhow yahay daweeyo ama taa hayda siiyo marka waxa weeye dad badan baa laga yaabaa inay dawo ku soo raadsadaan ama suugaan bad ku way daweeyaan hal abuurku jacaylka oo ninka loo jeeyo yamla Allah yarxamah nin baa u yimi la sheekay jacayl hayo bas gabar jacayl gabar baa tii wanaga tag inuu dhalinyaro qurux badan dabeetana markuu soo maray uu quustay dabeetana yamla buu yimi wuxuu yiri waxa waday salaad darbi fanaanki loo jiray arrintii loo sheekay hees musliim caana oo leeyahay durdur iyo xareeday doogiyo ogbaaday dalaalimada cadarkiyo dhibiciyo daruure dayaxiyo cadceed dayaxiyo xidigo nuurka isku daraya iyo dusha roob la dhacayo daa islaamoodi islamay amna ka darto dusha darubwa gabadhi inta way ogolaatay ka heesta suuqa gashay waayo dadkii ayaa ku soo celinaya markay heesta suuqa gasho gabadhi jawaab anaka saa ku amaanay waxa kugu sheegnay meel isku falay maxamed ka u diiday markii nafti qaabatay يأتي الهرب وأقول واحد سيجسي كان ولا دوين كره وي هذه أبو ما حصلتها أبو يوسف عثمان عبد الله يوسف شاعر داود وحكم حصلتين وقتين النسيسين